بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كان هو برنامج تعالى نقول دونا حديث الرأي وسامعه وعلى جل دونا هدي على ودر وقلاده تاريخ ذا ميستوريجا مجال البلدوينة حرته قبل كيران مجال البلدوينة مجال السعادة وعيد بلوينة وعيد مال مركزي لبعض فرا بدن وقول عضي عيدك دراوشتا عيدا بلد أيسوي الوجود قالمي برنامجyada imtixaanaadka ma ku maqli doontaan xerada weyn lama galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta xaruntu ah ereyga lama galay sababtu ugu baxay historygeeda ama taariikhdeeda ayaan idin haynaa aad kaga bogan doontaan warbaahintan wadada TV markaan soo qaadano magaca gobolka Hiiraan wuxuu ku baxay tuulo dhanka waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne oo ay degan dad beeraley ah oo ah dadkii asalaan loogu yimaaday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ciidankii uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdul Xasan magaalada Beledweyne waa lagu dagaalamay waxa kula dagaalamay dad beeraley ah ciidan uu hogaaminayo naxariisi janna ebaasiye nabadoon guuro dacar baxar oo daraawishta kula dagaalamay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne waxaan markaa aan la buunbuuniyaa taariikhdii Sayid Maxamed Cabdul Xasan Axmed Gure Xawataako taada la buunbuuniyaa waxa jirto markaa taariikh ay leeyihiin dadka kale beelaha kale ee gobolka Hiiraan ku dhaqan marka Sayid Maxamed Cabdul Xasan waxa magaalada Beledweyne kula dagaalamay ninka lagu magacaabo guuro dacar baxar oo isaga wata ciidan aad u xoog badan oo markaas ay sayidka uu yiri ciidankaas oo laga saarin Hiiraan daraawishta ay markaas guul gaari karta malaha ninka taariikhdiisi boogta qaar ee Talyaaniga way qorayaan waa la aqray waxa sida gobolka Shabeellada Dhexe gal taariikh kula jirto ayaga lama soo hadal qaadin Kismaayo dad taariikh kula jirto lama soo hadal qaadin gobolka Shabeellada Hoose oo kale dad taariikh kula jirto qabiil waaweyn halka degan taariikhdu aan la soo hadal qaadin marka haqiraad marka taariikhda waxana raadiyo wadani TV hadii nahay waxaan soo saari doonaa taariikhda dadka markaas taariikhdooda la duugay inaan banaanka aanu soo dhigno aaway waxa jirta hal ku dhig weyn oo ah qowladkii gal ku qashay qadiijo ma qowl fududa marka ay lahaayeen dadka beelada ee magaalada Beledweyne waxa jirtay inuu qowlad soo degay ciidanka daraawishta uu hogaaminayay Maxamed Cabdul Xasan 1912 dagaal xooggan ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne oo daraawishta iyo ciidanka hogaaminayay guuro dacar baxar ay ku dagaalameen guuro dacar baxar waxa qabtay ciidanka daraawishta erey waxa jirtay markaas laga hayo ay boogta qaar ay qorayaan buugga la magac baxay Beledweyne iyo Bersamaadki uu qoraya uu yiri soo shiro dadka isagu ka dhashay soo shirano yiri hadii soo shirin heer haba soo shirano hadii sida marka dambe la uruftu ka dhashay uu gaarsiiyay barnaamijka marka insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa aan keenay doonaa dad ruq cadaa ay arag ah muddo dheer soo joogay oo ka hadli doona beelihii deganaa magaalada Beledweyne 1912 beelihii deganaa isagoo u kala deganaayeen uu ka xaqiijinaya barnaamijkan hadii saray uu saamaxo marka taariikhdu ma duugoodo mana la inkiri karo haddii ay markaas in la duugo ay noqoto dad soo saaraya ayaa soo baxay doona marka waxaan keenay doonaa rag ruq cadaa ah oo dal dhaqameedyo marka mar waliba kala soco barnaamijkan imtixaanaha baro Beledweyne iyo Bersamaadkii aan ku soo martigeli doono ama aan ku martiqaadi doono rag ruq cadaa ah oo yaqaan taariikhda ama historiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan lama galay ereyga lama galay magac uu ku baxay sababtu u baxay waradii haynaa qof ka sheekeynay historiga ee ninkii markaas jibisada ku dilay ee ku noolayd eriga lama galay sababtu ugu baxay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa laga deganaa oo kaliya xaafada Buulxable waxa markaas ganacsiga inta badan gacanta ku hayay dadka carabta ah oo iyaga markaas keeni jiray ganacsiga bagaashka dharka iyo wixii lamid ah inta kale waxay ahaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley haddaba mar kale kala soco warbaahinta wadani an TV حقيقة رسمية تاريخ historiga magaalada Beledweyne waad ku maasantiin daawashada barnaamij